ardayda kale wax jaamacadda Camuud ku jirta 200 way ka badan ilaa 600 qofta ee deegaanka soo jeeda reeraha degan Boorame ee deegaankaas ka jira way ka badan yihiin nalaal inaga reeraha geesinta Boorame ka degan wada arkaysan marka taas waxaan tusiyaa qolada reer awdal cadaawad inaanay ku koobnaan cid qoray inuu wada koobnaan reer Soomaaliya Faysalow haday meel walba way kula gashay anu xisbigaaga horta waxaan iraahdaa xisbi uma aqaano waa bagin bowl banera وصحن يروكو قرفيستو وايو معارض نمتيد محافظ نمتيد واديغا مدبيا فيلب فلبوي حالكاغو دياد halkana jaanis kamana helaysid kamana heli doontid inamadana waxba kuma sameyn kartid kulli maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid hadalkii ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe horta adduunka dadka waxa jirta qaybta ardayda la dhaho ama ummadda dadka dhoo birimageedada ama dhalinyarada iyo waxyaalaha siyaasadda gelin baa jira gudoomiye awal dawlado iyo siyaasad iyo waxa haysatay dawladaha haysatay iminkiina dhalinyaradii iyo shacabka iyo maatada iyo wax magaratada inaad ku soo jeesatid iyo ardayda jaamacada wax ka baranaysa adduunkuna waa international annagu haddaanu nahay ama Puntland aanu ka nimi gobolada Sool Sanaag iyo aanu ka nimi amaanu koonfur ka nimi arday meel kasta ka yimaada xuduud ma xidho waa arday anagu Boorame waanu imanana waanu joogaynaa hadalka Faysal Cali Waraabe yirina hadal micnihii naga celinaya ama naga kaxaynaya maaha waxaan leeyahay kada xasarada iyo hadalka xanafta leh aad ardayda dhex dhigaysid iyo dadka walaalaha ah siyaasaddu anagu siyaasadoon ka madax banaanahay inaanu siyaasad micnihii aanu faragelino anagoo ardaya inaanu wanaaga iyo nabadgelyada aanu ka shaqeyno oo aanu waan gallo baa anaga nala gudboon laakiinse gudoomiyuhu qodob buu ka hadlay aan loo baahnayn waxaanu ku leenahay qodobka Faysalow ka fiirso kuna noqo haddii kale hadaladii xantaana soo gaargaarayay odagu dee waa saan ba moogtay ba iyo Faysal odagu waa yar fudud yahay iyo moogtay ba deba annaguna kulay baanu ku dhaqmaynaa laakiinse gudoomiyaha tahay xisbi qaran xisbi baad gudoomiye u tahay dad baad leader u tahay hogaamiye tahay inaad micnihii adoo maanta leader inaad tiraahdid ardayda Puntland ka timi inaad xasarad iyo waxa bilowdid maaha annaguna kulay waa naga waano ummaduna waa inay dhashay waa abti aabo waa habaryar yeedo waa la isku wada dhexnool yahay sida halkan loogu nool yahay baa xagga loogu nool yahay laakiin siyaasaddu annagu siyaasadoon ka madax banaanahay Faysal waxaan leeyahay Faysal carruur baad dhashay kuwaad maanta wax ka sheegaysan halkan jooga iyo kuwaad dhashay waa isku mid inaad tiraahdid ardayda Puntland ka timi waxaan ku leeyahay Faysal oo dib isugu noqo waxaan ka hadlayaa raayigii oo ka dhibtay Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo hadalkii ka soo yeeray maalmahan oo ahaa in ardada jaamacadda Camuud dhigata oo ka soo jeeda gobolada Puntland ama Sool iyo Sanaag yacan aduu wixii magaalada yimid oo dhan aan ahayn dadka Boorame u dhashay oo ku tilmaamay in dadkaas wax la gaarsiiyo ama waa loo geysto dhibaato sida Faysal yiri hadaladiisa ku muuqatay Faysal haddaan la hadlo hal mid baan kula dardaarminaa anigu waxaan ka soo jeedaa gobolada Puntland gaar ahaan waxaan ka soo jeedaa Garowe haddaan Faysal la hadlo waxaan oran lahaa Faysal hadal waana iga waan dhihi lahaa Faysal waa iga weeyaa waayo arag wax walbana uu ogyahay bulshada Soomaalidana dad la kala qaad maahan mideeda labaad waxaa jira dad la yiraahdo birmageydo waa dadka cuqaasha odayada oday dhaqameedyada suldaamada ugaasyada sida ardada maatada carruurta iyo haweenka haddii xaraf dadku isgaarsiiyaan maahan in dadka birmageydada ama la dhaho saas ama hadalka Faysal yiri kale la yiraahdo magaalada Boorame waa magaalo Soomaaliyeed Soomaaliland ba ka tirsan laakiin magaalo Soomaaliyeed waxaan kaloo la hadlayaa Faysal hadalkiisa haddaan ra'yi ka dhibto Faysal ka daawan dhiilaa dadka dhibaatada dhex dhiga sidii waxana wadi wax ku qurux badan maahan waa wax mustaqbalkaaga dambe iyo kaaga hadaba waxaan kaloo ku leeyahay Faysal waxaan qabaa anigu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan wax xisaabtamay nin hadal noocaas ku hadli kara ama hadal noocaas ka dhacayo uma qabin magacaygu waa Samaroon Saban Axmed waxaan ku hadlayaa maanta
afka dhalinyarada gobolada galbeedka waxaan xalay daawaday arrin aan la yaabay oo ku hadlayay nin sheegta xisbiga waxaan ahay xisbiga ucid gudoomiyaha xisbiga ucid oo anagu u naqaano Faysal Faaruq ama ninka waalay dhagaxsita wuxuu ka hadlay xalay dhalinyarada ka barata wax jaamacadda Amuud ee ka yimid Boosaaso iyo Garowe ee Puntland waxaan leeyahay Faysalow inamada ka yimid Puntland ee Boosaaso iyo Garowe ka yimid ee Boorama joogay waxay joogaan gurigii hooyadood iyo aabahood ee ma joogaan meel lagu dilo ee meel lagu jiro cadawna maaha sidaa warkin haddii ninku dadka dhexdooda joogsataan annagu halkan waa meel ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed way ka ganacsadaan waxbay ka bartaan way ku nool yihiin reeraa u degan laakiin maaha meel ay lagu gohaadiyo ee waa meel ay ku nool yihiin waa meel ay ku ganacsadaan taa oo la socon muse midda kalena kula yaamayne waa tii ciyaalku ugu heesayeen waa Faysalo waa Faaruqo waa filin kartoon marka taaday taaman ka soo qaadayna hadalka Faysal ka soo yeeray ee uu ku weerarayo inamada ardayda ah ee jaamacadda Amuud dhigta meeshu waa jaamacad waa in meesha ay joogaana waa hoygii nabadgelyada Faysalna marti uguma aha adiga marti Faysalow kuuguma aha walaa adiga iyo qayrka iyo ka kula midna marti uguma waxay joogaan waa wadankoodii waxa weeyaan waa hoy waxbarashadana meel walba loo tagaa wadanadkaaga yahayna waad u tagtaa wadankaagana waa laga tagtaa hoyguna waa hoy nabadgelyo anigu waxaan u arkaa inaanad jeedin inamada inaad u jeegto gobolkan Awdal oo nabadgelyada iyo dadka imanaya ee soo camiraya aad ka xun tahay ee aanad inamada u jeedin haddii aad u jeedana inamadan waxna ma oran kartid waa dad ka nabadgelya dagaal ma wadaan waa niman qalin sita wax baranaya oo Soomaaliyeed weey wax alla waxad hoygana wax weeyaan cid waa meel cid walba ku noolaan karto oo hoygii nabadgelyada waa baytul aamin marka Faysalow hadday meel walba way kula gashay anu xisbigaaga horta waxaan idhaahdaa xisbi uma aqaano waa bagin bowl baan idhaa waa saxan yar uu ku qarafaysto waayo macaaradna ma tihid maxaafidna ma tihid waa adiga midabeeya Philip Falab way xaalkaagu haddii aad halkana jaanis kamana helaysid kamana heli doontid inamadana waxba kuma samayn kartid waa inamada wax baranaya jaamacadda bay joogaan gobolka Awdal bay magan u yihiin waxaan kaga baxayaa wax alla waxaad inamada yeeli kartay iyo waxaad u diri kartay iyo hadalkaaga ay waxa weeye hadalku waa nacfi iyo neef iyo naar waa midad ku damboobto nacfina waa midad wax ugu faa'iideyso ummadda laga faa'iideyso ama dadka wacdi ama khayr ku sheeg kaagu inta badan neef buu leeyahay nacfina maaha naarna ma waa neef waxa kani waliba naar buu ku soo hogaaminayaa nacfi male waa neef iyo naar baan oran karnaa waanan intaasaanan ku soo gabagabaynayaa magacay waa Shacib Muuse Cumar waxaan deganahay magaalada Boorama waxaan nahay ganacsatada magaalada Boorama ee kula hudheelada cuntada hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha Faysal anigu aad iyo aad baan moogtay uga xumahay waana hadal nasiib darro ah looga wanaagsan nin musharaxa amba gudoomiye xisbi inuu waxaasoo kale ku hadlo magaalada Boorama waa hoygii aqoonta hoygii nabadgelyada hoygii ummadoo dhan waa xaramkii ummadda moogtay magaaladu cid wadanka dadka laga leeyahay ma jirto sababta jaamacadda Amuudna waxa kulmisay waxaas luqadda Soomaaliya ku hadlo kulmisay annagu waxaan dareensannahay dadka halkan ka dhigta inay wax nabadgelyo darraan wadanka ku haynin inay cadowna ku haynin moogtay sababtoo dadku aqoon bay soo doonteen aqoonta Itoobiya loo tagaa oo Djibouti loo tagaa oo Mareykan loo tagaa moogtay aqoontu waa iftiinka nolosha weey waxa ma moogtay inuu qofku siyaasadu ka dhigto waanba ku soo qabsada maaha waana laga fiican yahay hadalkana waxaan leeyahay dib ugu noqon moogtay xal marina ka bixi moogtay oo balajeesna ka bixi ma moogtay sababtoo adiga markaa timaado si wanaagsan lagu soo dhaweeyaa cid wadankan laga leeyahay ma jirto wadanku waa xarun ganacsi weyn waa xarun aqooneed waa xarun moogtay ummadoo dhan u dhaxaysa weey ma moogtayna baasha la siyaasadey ma magacay waa Yuusuf Maxamed Faarax oo ahay arday ka qalin jabisay jaamacadda Amuud xaqiiqdii haddanu ka hadalno hadal ka soo yeedhaya Faysal ma aha hadal sax ah dadka Soomaaliyeed in la kala xidho maaha waa arday ka dhigata jaamacadda aqoon ay soo doonteen lagmana tilmaami karo in la yiraahdo
cadow ayay ku yihiin arday garowe ka yimid ama Soomaaliya ka yimid oo maxay ahayd jaamacadda Amuud wax ka dhiganaya in lagu tilmaamo xaqiiqdii maaha cadow Soomaaliya ama gobolka Awdal lagu tilmaamo xaqiiqdii maaha ma wanaagsan in dadka Soomaaliyeed la kala xidho waxaan leeyahay siyaasiga Faysal ma hadalada ka soo yeeray hadalada miisaan leh oo waxtar u leh Somaliland ama aad guul lagu gaari karo ma aan leeyahay marka waxaan leeyahay u fiirso hadalada aad leedahay ama ka soo yeeraya hana oran ardayda ka dhigata jaamacadda Amuud gobolka Awdal ay cadow ku yihiin waxaan leenahay cadow kuma aha wadad Soomaaliyeed diinta islaamka wada haysta wadad muslina wadad wax dhiganaya oran mayno anagu haddaan nahay reer Boorama oran mayno ama gobolka Awdal cadow ayay ku yihiin wadad wax ka faa'iideysanaya annaga diinteena la degan yihiin wax dhibaato ma soo gaarsiiyaan wadad aad u wanaagsan waxaan leenahay Faysal hadalka ka soo yeedhaya dib uga noqo dibna u cafi ardayda maxay ahayd ka timaada garowe ee wax ka dhiganayso gobolka Awdal jaamacadda Amuud khasaaneed marka waxaan leenahay kulley hadalkaas hadal sax ma aha oran lahaa siyaasi rug cadaaya tahay waxaasan wax aad ka hadasho maaha ana wax sumcad ku sameeyay ma ahan leeyahay Faysal hadalkaagu miisaan ma leh waan noqda hadal miisaan leh oo waxtar u yeelanay Somaliland maaha wax aqoonsi lagu helayo maanta hoos soo dhacday kor u socobaanu leenahay